السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلامي دمان بعد كحران يوتيوب جنال كان عدو تيج كسور هذا مقال كان مانتا رنانتي مقال كان وحي صاحب بدي قصو سدان إنان سو سميو بوستر رمضان مبارك رنانتي بوستر آد فربدان أيان كسو سبيد دونا بلس بوستر كان وحنوخن دونا بارتي 1 بوستر رمضان مبارك أنا سلاركنو بوستر كآد كخروح لبدان أيان ديساين جريد دونو بوستر كان ديساين جريد دونو ونوعان هرتينا كموخدا aad arkaysaan aad ku quruxda badan runaantii sabirkaaga aad isticmaali kartaa halka anigu aan adeegsaday sabir qof kale uu leeyahay okay marka waxaan gali doonaa ugu horan horto YouTube channelkayga ama YouTube-kayga ayaan soo furayaa kadibna waxaan tagi doonaa qaybta channelkayga ama loogadeeda ay ka muuqato kadibna channelkayga ayaan toos u soo furi doonaa waxaan tagi doonaa bartaan ay ku qoran tahay posteska runantii qoraalkan ayaa waxaan ku soo qoray bartayda YouTube-ka waxaana ka soo wareegatay 21 hours ab 21 saacadood walaalayaal waxa bilaabanayso dhawaan hadii uu Alla na gaarsiiyo bisha Ramadan waxaan jeclaan lahayd inaan bishaan idin soo gudbiyo oo aan ku soo kordhiyo YouTube channelkeena fadlan fikradiina waa ii muhiim commenti ugu soo qora mahadsanidin Allah Ramadaanka caafimaad nagu gaarsiiyo fariintaas aan runantii soo qoray xalay marka fariintaasi saaxiibo fara badan ayaa fikrada ila soo wadaagay halka saaxiibada ay u bateenba inaan soo sameeyo design Ramadan ama poster Ramadan Mubaarak runantii waa u jeedin saaxiibka ugu horeeya wuxuu soo galay 18 saacadood ee ka soo wareegtay wuxuu dhahay adoo mahadsan macallin bisha Ramadan design naga hagaaji si fiican noogu soo dhis bishaas gudaheeda yani wuxuu leeyahay Ramadan poster naga soo dhis design-ka Ramadaanka sidoo kale waxa ku xigo qofkaani kale ay ugu qoran tahay Haska Maxamed ay ugu qoran tahay asagana waxa ka soo wareegtay 17 hours am 17 saacadood wuxuu leeyahay poster design oo Ramadan okay wiilkaani kale ku xig oo muddo asagana sidoo kale yani 18 saacadood waxaan ka sugaynaa ayuu leeyahay poster design Ramadan iyo video editing culimada wacdiga si kooban runantii saaxiibadani dhamaantood waxay u bateen horto inaan ka soo hadlo poster Ramadan Mubaarak sidoo kale waxa jira saaxiib hadalkiisa ama fariintiisa aad ii soo jiidatay oo ugu qoran tahay Mustafa Abdirashiid wuxuu leeyahay ma garanayo waxa aad ka hadasho laakiin waxa aan jeclaan lahaa qisooyinka okay qoraalkiisa aan sii akhrino qisooyinkii aadaabkii carbeed oo af Soomaaliya taasi waa fursad aanay jirin cid kaaga horeysay oo aad ku heli karto taageerayaal badan wiilkaani aad u mahadsan yahay anagana sidoo kale reply ayaan u galay oo waxaan ku dhahay mahadsanid walaal sidaad halkaas ka arki kartaan iyo dhammaan saaxiibada kale aad ay u mahadsan yihiin horto ee commentiyadooda quruxda badan ila soo wadaagay runantii fikradu waa muhiim inaad ila soo wadaagto fikradahaaga sidoo kale waxaad doonaysaa ama baahidaada inaad isoo weydiiso sidoo kale jaanisyada ka jira bartaan YouTube-na inaad ila soo wadaagtaan waa arin aan aad ugu farxo runantii waa mahadsantiin dhamaantiinaba muuqaalkaani wuxuu baarti 1 u yahay sidaan hore u soo sheegayba poster Ramadan Mubaarak ayaan isla design gareyn doonaa insha Allah qaybo kale waa ka soo sameyn doonaa balse qaybtaani ama baarti 1 kaani ayaa aad ku caawin doono ama aad ku sameysan kartaa wayna kugu filan tahay hadii aad sidaan u sameyso sidoo kale walaalka fariintiisa ii soo qoray aad ku qiimaha badan ee Mustafa Abdirashiid insha Allah asigana xili aan dheereen janaalkeena waxyaabo cusub ayaan ku soo kordhin doonaa sidoo kale futures cusub ayaan isla wadaagi doonaa insha Allah bisha Ramadan sidaan wax badan ayaan ka bedeli doonaa oo waxyaabo new ayaa jiri doono insha Allah markay inoo suura gasho ayaan idin soo wadaagi doonaa saaxiib hadii aadan muuqaalkan weli like saarin ma aqaan sababta aad like ay haysato Ramadaanka dartiisa like u saar muuqaalkan marar fara badan ayaa idin dhihi jiray like inoo saara balse bisha Ramadan awgeeda saaxiibayaal waxaan idin ka codsanayaa maadaama aynu sameynayno poster Ramadan maadaama aynu nahay dad muslimiin oo aynu rabno inaan midka kale la wadaagno poster Ramadan Mubaarak oo iskugu hambalyeynayno maadaama ay tahay bil khayr runantii muuqaalka like ii saara waa muhiim saaxiibo fara badan ayuu gaari doonaa insha Allah ugu horreyn waxaan soo furan doonaa application-ka Bixlab si aan u bilaabno shaqadayna design-ka
markaynu soo furno mar waliba qaabkan uu noo soo bixi doonaa cancel ayaan dooranayaa qoraalkan new text ayaan dooranayaa delete ayaan dooran doonaa kadibna okay ayaan dhihi doonaa saaxiibayaal dhammaan waxyaabahan u isticmaalay design-kani waxaad ka helaysaa linkiga ugu horeeya ee qaybta commentiga yaala ku dhufo kadibna wuxuu ku geen doonaa Telegram channelkeena halkaas ayaad kala soo degi doontaa dhammaan waxyaabaha Ramadan Mubaarak aad ku samaysan karto kaliya intaan hadda isticmaalay kuma soo dhigi doono waxyaabo fara badan ayaa soo dhigi doonaa everything oo YouTube-kan aan soo geliyo design ah halkaas ayaad ka heli kartaa okay waa mahadsantihiin saaxiibayaal ugu horeen waxaan tagi doonaa bartaani ee labada shayb isdul saaran kadibna qaybta color ayaan dooranaynaa kadibna color aad ayaan soo furan doonaa background-keena color white ayaan ka soo dhigan doonaa ama colorka cadaanka ah adiga haddii aad rabto coloriska kale sida yacni coloriskani kale waa soo dooran kartaa oo adiga unbay kugu xidhan tahay balse aniga waxaan adeegsan doonaa colorka white-ka ah ama cadaanka ah sidaad u taqaaniinba okay kalarada cadaanka ayaan adeegsanayaa okay marka sidaan kalarkan u soo dooranay kadib waxa ku xiga inaan ku soo darsano waxyaabii aan u baahneen ugu horeen waxaan dooranayaa balaastaasi kadibna shapes ayaan ku dhufanayaa shapes markaan ku dhufto kalarka ayaan ka bedeli doonaa runaantii saaxiib qasab ma ahan kalarka aniga isticmaalo ina adigan isticmaasho balse kalar kale oo qurux badan way ku jiraan waadna adeegsan kartaa laga yaabaa kalarka aniga halkan ugu jiro ina adigu uusan kuugu jirin marka coloriska inta badan oo basic ah sida kalarka gaduudka ah jaalaha cagaarka lagama waayo runaantii waa kalar aad u soo baxi doono oo aadna kuugu qurux badnaan doono aniga hadda waxaan adeegsan doonaa kalarkaani ayaa adeegsanayaa ee noocaani ah balse adiga coloriska kale haddii aad haysat waa adeegsan kartaa ama kalar noocaana haddii aad heli karto adeegsi ayaan ku dhihi lahaa kadibna tig ayaan soo dhihi doonaa oo sidaan ayaan usoo dhuubin doonaa kadibna hoos ayaan u jiidi doonaa oo ilaa aynu ka geeno qaybtaasi hoose xoogaa yar ayaan yara balaarin doonaa qaabkaas oo kale ayaan ka dhigi doonaa anagoona xoogaa halkaas u dhabayn doono marka saaxiibayaal waxaan dooran doonaa calaamadaani balaasta ah kadibna waxaan ku dhufanaynaa bartaan ay ku qoran tahay from gallery waxaan ku soo darsani doonaa sawirka aan rabno inaan u adeegsano design-keena Ramadan Mubaarak okay ugu horeen sawirka ayaan soo dooranayaa ee shakhsiga adiga sawirkaaga ayaad soo qaadan kartaa kadibna remove pg ku soo samee ama yacni background-ka ka soo jar sida background-ka looga jaran waxaan kaga soo hadlay muuqaal channel-kayga ku jira muuqaalkaasi daabo kadibna yacni sidaas background-ka aga jar haddeer tig ayaan dhihi doonaa markaynu sawirka sidaas u soo dooranno haddeer waa u jeediin sawirkii shakhsiga ayaa halkaan ii soo galay kadibna waxaan ku samayn doonaa waa soo yara zoom gareed doonaa anigoo ku aadin doona shaybkaasi bartaasi inoo yaalo okay sidaas ayaad yeeli doontaa halkaas ayaan dhigi doonaa kadib shaybka ka dambeeya ayaan dooran doonaa oo shaybkaas ayaan ku dhufanaynaa xoogaa hoos ayaan u dejinayaa shaybkaasi markaan doorto kadib koobi ayaan ka samayn doonaa runaantii waxaan shaybkaani ahayn ma isticmaali doono oo inta ugu badan shaybkaani kalarkaani ah ayaan adeegsanayaa haddeer shaybkaani markaas sidaa ugu soo darsado kadibna waa wareejin doontaa ama sidaas ayaad yeeli doontaa qaybta hoose ayaad soo saarinaysaa shaybkaagii ee aad xilligaasi ku soo darsatay ama koobi aad soo dhaaday okay sidaas ayaad ugu aadinaysaa shakhsigaanina waxaa la rabaa inuu ku aado shaybkaasi dushiisa sidaad arkaysaan haddeer aad buu u qurux badnaaday ama design ayuu u soo ekaaday balse weli shaqada way dhiman tahay oo yaanan ka hordhacin ugu horeen marka haddeer waxaan ku xijin doonaa calaamada balaasta ayaa mar kale dooran doonaa kadibna from gallery ayaan dhihi doonaa waxaan ku soo darsani doonaa everything oo aan u baahanahay inaan design-kan ku isticmaalo tusaale ahaan midkaan ayaan soo dooranayaa kadibna tig ayaan soo dhihi doonaa markaynu sidaa tig u soo dhahno haddeer sidaad arkaysa background ayuu wataa shayga markuu background wato balse kalarkiisu uu yahay kalar yacni madow ah ama kalarada nooca kale uu yahay waa caadi background-ku waa ka jari kartaa balse shayga haddii uusan ahayn kalar noocaasi ah background-ka kama jari kartid haddeer waxaan samayn doonaa sawirkan iyo background ka jari doonaa waxaan qurfanaynaa bartaan ay ku qoran tahay erase color kadibna enabled ayaan ka dhigi doonaa okay haddeer waxaa u jeedaa inaan nagala qaaday background-kii gadaal jiray kadib tig ayaa qurfan doonaa ama calaamada saxda ayaad dooranaysaa kadibna waxaan tagi doonaa bartaan ay ku qoran tahay color kadibna enabled ayaad ka dhigi doontaa sidaad arkaysa haddeer wuxuu yeeshay kalar gaduud ah ama casaan ah balse kalarkaa kama rabo oo kalarkii hore ayaan dooran doonaa ee aan halkaas u isticmaalayay kadibna tig ayaan dhihi doonaa waa yaraynaynaa xoogaa
okay kadib waxaan ku aadin doonaa qaybta sare ayaan ku aadinaynaa oo qaybtaasi ayaan ku aadin doonaa shape-keeni xoogaana sidaas ay soo zoom garee doontaa si uu si fiican ugu muuqdo kadibna bartaas ay saari doontaa haddeer sidaad arkaysaan aad baa yacni aan u soo dhaweynay oo aan isku keennay haddeer marka waxaan ku soo darsan doonaa waxyaabihii inaga harsan kadib waxaan dooranaynaa balaastaasi from gallery ayaa mar kale dhihi doonaa markaynu from gallery soo doorano waxaan soo dooran doonaa Ramadan kariimna waa la dhihi karaa sidoo kale Ramadan Mubaarakna waa la dhihi karaa labada shayb waa ku haya Telegramka ayaad kala degaysaa aniga haddeer waxaan isticmaali doonaa Ramadan Mubaarak ayaan adeegsanaynaa adiga Ramadan kariim adeegso haddii aad rabtana Ramadan Mubaarak adeegso intaba middaa doonta ayaa samayn kartaa kadib tig ayaan soo dhihi doonaa kadib waxaan tagi doonaa barta ay ku qoran tahay erase color si aan uga reebno backgroundkaasi kadibna enabled ayaan ka dhigi doonaa haddeer waa u jeediin Ramadan Mubaarak ayadoo ku qoran yacni si English ah ama si af Soomaali ah iyo sidoo kale si Arabi ayadoo ku qoran ay halkaan inoo soo gashay haddii aad rabto colorkaani toos ayaad ugu isticmaali kartaa balse aniga waxa dhan waxaa rabaa inaan ka dhigo hal nashqad ama hal kalar ayaan u adeegsan doonaa balse adiga haddii ay kula qurux badan tahay qaabku haddeer yahay waa ka dhigan kartaa okay aniga haddeer waa ka bedelaya waxaan tagi doonaa bartaani color kadibna enabled ayaan ka dhigi doonaa kalarkiisana waxaan u isticmaali doonaa isla kalarkii aan u adeegsaday sheebiska iyo sidoo kale sawirkii ka horeeyeyba kadibna bartaas ayaan sidaas u geen doonaa oo halkaas ayaan dhigan doonaa haddeer marka waxaan dooranayaa bartaani balaasta ah kadibna waxaan dooran doonaa shebis kadibna sheebkeena waxaan ka dhigi doonaa kalarkaasi kadibna waxaan furi doonaa barta radius ayaan tagaynaa sidaas ayaan radius u gelin doonaa sheebkeena okay waxaan rajaynaynaa arkaysiin radiuska 100 ka dhiga ama 100 sida u taqaaniinba kadibna bartaas ayaan soo dhigi doonaa shape-keeni radiuska aan gelinay xoogaa dhankaas ay u jiidaysaa waa yara dheereen doontaa okay halkaan qoraal ayaan saari doonaa shape-kaasi ah okay waxaan xoogaa kor ayaan u yara qaadi doonaa hadhoodii si ay meesha cariiri inoogu noqon okay waa u jeediin sidaa filayo oo waa ila socotiin haddeer markay shape-keyga sidaas ugu soo darsado shape-kaani aad u jeediin ayaan waxaan dhihi doonaa copy kadibna edit ayaan dhihi doonaa markaan edit dhaho kadib waxaan ku samayn doonaa opacity ayaa 0 ka dhigaysaa ama eber kadibna waxaad tagi doontaa barta ay ku qoran tahay stroke ayaad tagaysaa oo stroke-gaaga kalarkiisana waxaan ka dhigi doontaa kalarka white-ka ah okay stroke qaybta hoosaa laga soo doortaa kalarka caddaanka ka soo door stroke-gaaga kadibna yaree size-kiisa oo stroke width-ka waxaa ka dhigi doontaa ilaa iyo 5 ayaad ka dhigaysaa ama number 5 kadibna sax ayaad ku soo dhufani doontaa kadib xoogaa waa yareynaysaa okay aad ayay u yareynaysaa oo waxaa la rabaa inuu ku aado qaybta dhexe kaliya xoogaa sidaas ayaan u jiidi doonaa design-keyga waa u jeediin siduu noqday oo qaybta dhexe ayaa rabaa inuu ku aado geesaha inuu ka fuulo sida sheebka oo kale qaabkaas inuu u sameysmo ayaa rabaa okay waa ula simi doontaa oo waa ula raaci doontaa kadibna bartaasi ayaad sidaas ugu aadinaysaa haddeer sidaad arkaysaan waxaan filayaa inuu ku aadan yahay bartii loo baahnaa kadib waxaan tagi doonaa bartaani kadibna balaastaas ayaan dooranaya ama tagastiga kadibna qalinkaas ayaa ku duldhufan doontaa new tagastigan ayaad tiri doontaa runaantii halkaan waxaan ku qori doonaa taariikhda uu soonkaani ku aadan yahay ama sanadka uu soonkaani yahay runaantii sanadka haddeer markaynu fiirino hijriyada waxay ku aadan tahay 1446 waa hijriye ahaan isbeys ay u dhaxaysinaysaa kadibna xarafka hada ayaa raacsan doontaa kadib marka waxaad dhihi doontaa calaamadaasi daashta ah ama slaashan dhoo cafwan slaashta ayaad dhihi doontaa marka calaamadan slaashta geliso kadib waxaad dhihi doontaa isbeys waxaad haddeer ku qori doontaa taariikhda milaadiga waxay ku aadan tahay ama taariikhdan si caadiga u xisaabsano okay taariikhdaas waxay ku aadan tahay 2025 ay ku aadan tahay sanada 2025 ah kadibna space ayaad dhihi doontaa xarafka m ayaad raacin doontaa kadibna okay ayaad soo dooranaysaa markaa sidaas uu soo doorato bartaas ayaad soo saari doontaa ama qaybta dhexe ayaad ku aadinaysaa kadibna bartaani color ayaad furi doontaa kalarka waxaad ka dhigi doontaa kalarkaasi caddaanka ah kadib waxaad tagi doontaa bartaani ay ku qoran tahay ab font oo farta ayaad bedeli doontaa kadib markaa ab font imaato farta nooca rabtid ka soo dooro ama midda adiga kula qurux badnaato aniga haddeer waxaan isticmaalayaa fartaani waaweyn
ee khadda alcarabiya kadibna sidaas ayaa usoo doortay xoogaa waa soo yara weynaynaynaa si aynu ugu aadino sheebka dhexdiisa okay waa u jeediin waa 1446 oo hijriyada ah sidoo kale sanada 2025 oo milaadiyada ah runaantii sidaas markaad sameeyso kadib waxaa ku xiga inaad ku soo darsato waxyaabihii ku harsanaa haddeer waxaan dooran doonaa blasta kadibna from gallery ayaan dhihi doonaa oo waxaan ku soo darsani doonaa waxyaabihii inoo harsanaa tusaalahaan waxaan ku soo dari doonaa kulli caam wa antum bil khayr ayaan ku soo dari doonaa runaantii waa waxa ugu badan ee loo baahan yahay in la adeegsado bishaan Ramadaan markaad sameynayso design-ka noocan ah kadib tig ayaa soo dhihi doontaa oo background ma wadata ayada oo aniga ayaa mar hore ka jaray waxaana ku soo dhigi doonaa sidaan ku sheegay dhanka iyo Telegram channel-ka halkaasi kala dig kadib qaybta dhexe ay imaan doontaa qaybtaani color ayaad soo furaysaa kadibna enable ayaad ka dhigi doontaa runaantii haddeer colorkeeda wuxuu noqday color gaduud ah obol wuxuu ahaa colorka cadaanka ah balse lama rabo colorka cadaanka ah oo waxaan ka dhigi doonaa colorkii aan hore u adeegsanaynay oo kale kadibna tig ayaan dhihi doonaa haddeer waa yareenaynaa kadib kulli caam antum bil khayr halkaas ayaan ku aadin doonaa okay kadib markaan sidaas halkaas ugu aadino waxaan sameyn doonaa shaybisyadeenna hore ayaan isku xiri doonaa bartaan ayaan soo furayaa kadibna calaamada tigta iyo khaladka ayaan dooran doonaa waxaan tig garee doonaa taariikhda sidoo kale waxaan tig garee doonaa shaybkaasi iyo sidoo kale waxaan tig garee doonaa shaybka kale oo ku xiga markaynu sidaas saddexdaasi u doorano kadib waxaan qurfani doonaa saxda bartaani ee dhinaca midig afwan bidixda ka jirto ayaan dooranaynaa kadib markaynu doorano okay ayaan dhihi doonaa haddeer waxaa isku xirmi doono shaybkaani oo idil ayaa isku xirmay sidaad arkayso bartaa rabo ayaan gey karaa asigoo isku xiran sidaad arki karto kadib waxaan sameynaynaa yacni waxaan rabnaa kulli caam wa antum bil khayr inaan ka dhigno mid soo muuqata ama yacni soo yara weyn okay kadib waxaan sameynaynaa midkaan ayaan hagaajinaynaa xoogaa waa ballaarin doonaa saran waa u qaadaynaa okay hala arko geesaha in laga arki karo ayaa la rabaa oo si nadiif loo arki karo waad dooranaysaa kadibna dhankaas ayaad ka qabanaysaa marka dhankaas ayaa u celin doontaa sidaad arkaysa haddeer aad ay iskugu soo baxay kadib waxaan qaban doonaa Ramadan Mubaarak oo halkaas ayaan ku aadinaynaa kadibna shaybkeenii ayaan halkaas dhexe dhigan doonaa okay sidaad arkaysiin haddeer aad ay iskugu soo baxay sidoo kale kullu caam wa antum bil khayr wali zoom ayaan ku dari karnaa oo intaas ayaan la sami karnaa haddeer intaas ayaan sameynay ugu dambeyn waxaan soo gaarnay qaybta ugu dambeysay qaybtaani hoose waxaad samayn kartiin magaciina ayaa ku qori kartiin iyo number whatsappkiina icon whatsappkiina ayaa soo saareen kartiin balse aniga maadaama aan inta badan YouTube iyo Facebook iyo TikTok ama Instagram aan wax soo dhigo waxaan isticmaali doonaa iconiskayga kadibna waxaan ku qori doonaa kaliya magaca YouTube channelkayga iyo sidoo kale magaca TikTokkayga ayaan halkaan dhigi doonaa ama Instagramkayga iyo Facebookkayga waxaan dooranaynaa balastaasi kadibna from gallery ayaan soo dooranayaa kadibna waxaan soo dooran doonaa iconiskaani halkaan kaaga muuqda kadibna waa yaree doonaa oo waxaan ka dhigi doonaa 16.9 kadibna waxaan dhihi doonaa calaamada tigta ah markaynu halkaan inoo soo galaan waxaan tagi doonaa bartaan erase color kadibna enable ayaan ka dhigi doonaa haddeer saad arkayso background ayaa nagala qaaday kadibna waxaan tagi doonaa oo aan geed doonaa saddexdii icon qaybtaasi hoose markaynu sidaas u geeno haddeer kalarkooda aad uma qurux badna balse kalarkood si aan u soo saarno waxaan tagaynaa bartaan ay ku qoran tahay color kadibna enable ayaan ka dhigi doonaa haddeer waxay yeesheen kalarka gaduudka ah marka kalar waliba ayaa sii kartaa balse kalarka kaliya uu ku soo baxi karo waa kalarka white-ka ah ama cadaanka ah kadibna tig ayaa dhihi doontaa sidaad arkaysa haddeer aad ay ugu qurux badnaaday halkaas markaynu soo dhignay ugu dambeyn waxaan ku soo dari doonaa magaca YouTube channelkayga waxaan dooran doonaa qaybtaani kadibna waxaan tagi doonaa bartaani text kadibna qalinkaas ayaan ku dhufani doonaa oo waxaan ku qori doonaa halkaani adow teach okay adow teach markaa sidaas ugu qoro kadib waxaan ku qori doonaa follow us okay halkaan naga soo raac yani follow us naga soo dheh sida saddexda icons aan halkaan soo saartay sida YouTube-kayga Instagram-kayga iyo Facebook-kayga okay kadib bartaas ayaan soo dhiganayaa color ayaan tagi doonaa oo kalarkiisa waxaan ka dhigi doonaa kalarka cadaanka ah si uu soo muuqdo haddeer waxaad halkaan ku haysataa
booster Ramadan Mubaarak oo design ah oo aadna u qurux badan sidoo kale aad cid waliba la wadaagi karto marka la gaaro bisha barakeysan ee Ramadan sidaan ayaan ku joognaa oo wax ka harsan ma jiro bisha Ramadan kadib waxaan tagi doonaa AB font farta nooca doono ayaan ka soo dhigi doonaa ama sida ilo qurux badan oo ka dhig midaas ayaan ka soo doortay oo amrenes bold ku qoran tahay kadib sizekeeda ayaan xoogaa kordhin doonaa oo waxa imaanaysa bartaani size ay ku qoran tahay oo xoogaa size ay ku dari doontaa oo waad weyneyn doontaa ilaa iyo inta aad rabto adiga ay kugu xiran tahay haddeer markaynu sidaani marayno bartaani aynu marayno waxa inoo harsan design-keena inaan save gareysano sidoo kale aan ka aragno gallery-ga mobile-keena sidoo kale waxa idin tusin doonaa habka loo clean gareeyo ama loo nadiifiyo design-ka aad samayso haddeer waxaan dooranaynaa bartaasi save-ta ah kadibna save as image ayaan ku dhufani doonaa kadibna bartaan ayaan soo furi doonaa ultra ayaan dhihi doonaa kadibna save to gallery ayaan ku amri doonaa oo wuxuu nagu save doonaa gallery-geena marka haddeer waxaan ugu save gareeyay gallery-ga mobile-keena aan ugu baxno oo aan isla soo aragno haddeer waxaan ugu save gareeyay gallery-ga mobile-ka aan isla aragno gallery-ga mobile-keyga ayaan soo gali doonaa kadibna waa u jeedaa qaybta sare ayuu saaran yahay design-keenii weliba asigoo aad u qurux badan balse haddeer xoogaa sidaad halkaan ka arki karto shucac yar ayaa ku jiro oo qofka shakhsiga wejigiisa si fiican looma arko balse waxaan ku tusin doonaa qaabka shucacan aad aga saari karto dhexda ayaa ugu soo noqon doonaa waxaad soo degsan doontaa application lagu magacaabo winki runaantii aniga wuu igu jiraa qoraalkiisa shaashad ayaan kuu soo saaray la soo deg mobilekaaga ku isticmaal applicationka waxaa la yidhaahdaa winki qoraalka shaashadda ka qoro HD ayaad dooran doontaa ama qaybtaani kaaga muuqata faceka iyo sidoo kale image quality ay ku qoran tahay markaas sidaan u doorano HD ama image quality waanu la soo ogolaan doonaa oo waanu la soo furi doonaa kadib waxaan ka dooranaynaa qaybtaan ay ku qoran tahay HD ayaan ka dooranaynaa ama ultra HD-gaas waa dooran kartaa labada bay ku furan tahay balse HD ayaan iska isticmaali doonaa kadibna waxaan dhihi doonaa try now okay haddeer isku day yacni waxaa soo dooran doonaa boosterka aynu soo design gareynay markaynu soo doorano start ayaynu dhehaynaa okay kadib wuxuu bilaabi doonaa boosterkeena inuu clean gareeyo ama inoo nadiifiyo okay waxaanu sugaynaa intuu ka gaari doono processing-keena 100 ama 100 okay aynu yara sugno intuu ka gaarayo 100 haddeer sidaad arkaysiin processing-kii ayuu inoo dhammeeyey oo wuxuu inoo soo saaray before iyo after halkaan sidaad arkayso waa before-kii haddii sidaan aanu celin waa before haddii aan dhankaanay bidix u celinana waa after sidaad arkaysa afterka ayaa aad u qurux badan shucaac buu kaa baxayaa sidaad arki karto waxaad dooranaysaa halkaan ay ku qoran tahay HD after ee qaybta hoose ah kadibna waxaad dhihi doontaa save okay save ayaad dooranaysaa waa lagu save gareyn doonaa waa la save gareeyey kadibna dhexda ayaa aga soo bixi doonaa waxaan ku soo noqon doonaa gallery-ga mobile-keena okay ugu dambeyn aan isla aragno sida loo soo nadiif gareeyey iyo difference-ga u dhexeeya waa ka midka ugu horeeya waa u jeediin shucaaci waa laga soo saaray aad ayuu nadiif u noqday sidaad arki kartiin midka hore haddii aan idin tusana waa sidaani wejigiis waxaa ku jiro shucaac oo si fiican looma arko waxaan rajaynayaa inaad difference-ga ila aragtiin midkaani waa clear waa nadiif okay marka saaxiibayaal sidaan ayaad u samayn kartiin booster Ramadan Mubaarak waxaa idinka codsanayaa janaalkina inoo subscribe gareysaan sidoo kale muuqaalka aad like inoo saartaan intaan ku kulmi doono muuqaal noocaani ah waxaan idin leeyahay guuleysta goor waliba Ramadan Mubaarak.